yeerka anagu senior ma lihin waan qalin bedelanay oromayna waan qalin jabinay astaan magaciina Dr. Adnan Ismaaciil waxaa la doonayaa inaad suuqa sidaa uga muuqataan bulshada Soomaaliland waliba qaybta dumarka intii garanaysa wixii la oran jiray dumarland anaga la baxnay munaasabada loo sagaasimay ayaa waxay ahayd mid ay ku qalin jebinayeen ardayda baratay kulliyadda midwifery ee jaamacadda Adnan Aadan ee magaalada Hargeysa sidoo kalena lagu soo dhaweynayay ardayda cusub ee kulliyadaasi baran doona munaasabadu ahayd mid si heersare looga soo shaqeeyay loona sagaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka ugu sareeya jaamacadda Adnan Aadan macallimiinta jaamacadda ardayda qalin jebinaysay kuwa iyagu lagu soo dhaweynayay jaamacadda iyo mudan kale waxaana halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay maamulka jaamacadda Adnan Aadan macallimiinta iyo ardayda iyagu qalin jebinaya iyo sidoo kale ardayda lagu soo dhaweynayay jaamacadaasi waxayna yiraahdeen xaflad bilan oo barakaysan oo qurux badan marka idinka waxaan leeyahay hablaha qalin jebinaya aad iyo aad baanu idin hambalyeynayna aqoon wanaagsan baa soo qaadateen waxaa kulliyadaha ugu qiimaha badan baa ayay ka mid tahay midwiferygu kulliyadaha ugu qiimaha badan guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaana jaamacaddeena marka waxaan leeyahay hambalyo midhisiinka oo ardayda midhisiinka nahay iyo midwiferygu aad bay horta aad isugu baahayn mar kastaba waliba qofka Adnan Aadan jaamacaddeeda dhiganaya ee hospitaalka Adnan Aadan jooga mar kastaba qofku ah dependent midwiferyga mar kastaba idinku hambalyeynaa sida fiican nagala qaataan kulliyadda ayada yeerka anagu senior ma lihin waan qalin bedelanay oromayna waan qalin jabinay aqoontu ma istaagto waxaan maanta u mahadcelinayaa marka ardayda seniorka ee maamusay sharaf korkiina ha ahaato waad mahadsantiin dhammaantiin sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa ardayda cusub fakalkan maxay ahayd toolay midwife-ta ku soo biiraysa aad baad u mahadsantiin dhammaantiin midwife-tu waxay samaysaa ama waxay samaysaa dhallaanka ama hooyada ayay u gargaartaa midwife-tu waa caawiyaha bulshada Soomaaliland waliba qaybta dumarka intii garanaysa wixii la oran jiray dumarland anaga la baxnay waxaan mahad gaar iska leh maxay haytay maama Adnan Aadan oo ah role model-ka midwife-ta iyo nursing-ku u tahay maxay haytay meel ay higsadaan ama ay istaagaan waxaad barateen waa hooyo iyo dhallaan inaad badbaadisaan waxaan idin leeyahay hooyada si wanaagsan ugu shaqeeya oo ilaahay ka cabsada waxaad ugu shaqaysaan si naxariis badan qofka soo dhaweeya ha la idin arko ha la yiraahdo gabadha meesha joogta waa gabadh qaaliya ifka iyo aakhirada ilaahay ajar markaa uu ka siinaya mid baan leeyahay ardayda socotay amba qalin jebinaysa tagtay waxaan leeyahay horta way idin ducaynayna dhamaantayo sidan aan idin maamustayna qalbiga naga taalan kulli oo intan in ka weyn baan soo wadnaa insha Allah waxaan idin ku leenahay guuleysta mar kasta meesha tagtaan ilaahay ka dhigay meel khayr qabta waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u hambalyeynaya ardayda qalin jebisay oo aan leeyahay halka kaga hadhina geediga sii wada dadaal iyo sabir iyo xilkasnimo waxa weeye ku guta inta idin dhiman noloshiina hooyooyinka u dabacsanaada caawiya kaliya waxaad suuraysataa ama malaysataa hooyada markay adiga ku mulaysay baahinteen leeg bay qabtay qof kale ba eegina hana maxay hayday ku kakagnaanina sida lagu dacaayadeeyo marka la inaga joogo dibadda fiilka caafimaadka ee la yiraahdo dadka ka shaqeeya caafimaadku waxa weeyaan dad adag santaaga yeyna dhicin intiina caawa qalin bedelatay baan sheegayaa macallimad weyn baa idin tababartay waxaad sidataan magaciina Dr. Adnan Ismaaciil waxaa la doonayaa inaad suuqa sidaa uga muuqataan
gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi lagu bixiyay abaalmarino kala duwan oo qaali ah oo lagu doonsiiyey ardaydii ugu sareysay kulliyadda midwayferiga ee jaamacadda Adna Aadan iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamulka jaamacadda Adna Aadan oo iyagana halkaasi lagu maamuusay. Cabdirasaaq Coomey, MMTV.